halkani waa deegaanka loo yaqaano Al-Cula, deegaan uu nebigu naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ummaddiisa ka mamnuucay inay galaan wax ka cunaan sidoo kalena biyaheeda la cabo. mar uu nebigu naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee isaga oo safar ah soo agmaray magaaladan ayuu wejiga maro ku duubtay kadibna dhaqse ku dhaafay. maanta deegaankan waa deegaan dalxiis oo ay meherado, hodheelo caalami ah iyo goobo dalxiis ay ka samaysan yihiin. deegaan dadkii deganaa la marsiiyey cadaab aan dad ka horeeyey la marsiin. waxaynu u jeednaa deegaanka Al-Cula, gaar ahaanna magaalada Madaa'in Saalix oo aynu muuqaalkeenna maanta ku eegi doonno qisada argagaxa leh ee ay la gaarka tahay magaaladan iyo sidoo kaleba sababta loo mamnuucay in la booqdo. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waaberi Media. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. tan iyo markii uu talada Sacuudiga gacanta ku dhigay dhaxal sugaha dalkaasi Amiir Maxamed bin Salmaan, wuxuu la yimid siyaasado iyo dhaqamo ugub ah oo ku cusub dalkaasi. wax badan oo markii hore mamnuuc ahaa ayuu fasaxay. albaabo badan oo markii hore aan la furi jirinna xargaha ayuu ka jaray. amiirkan da'da yar ayaa dejiyey aragti halkudhig looga dhigay 2030 oo yoolkeeda ugu weyn uu yahay in dakhliga Sacuudiga uusan noqon mid si dhammaystiran ugu tirsan shidaalka oo keliya sida uu maanta yahay. mid ka mid a mashruucyada ugu waaweyn ee ugubka ah ee ay aragtidani la timid waa mashruuca ay iska kaashanayaan wakaaladda dalxiiska Sacuudiga iyo shirkad maamusha qaybo badan oo ka mid a madxafyada Yurub, oo ah in loo dalxiis tago Madaa'in Saalix oo ah magaalo dhacda deegaanka Al-Cula, ahna halkii lagu halligay qoomkii Nebi Saalix calayhi salaam ee reer Thamuud. Al-Cula waa deegaan ku yaala koonfur galbeed boqortooyada Sacuudiga. wuxuu 300 kiiloomitir dhanka waqooyi ka jira magaalada Madiina. Al-Cula waxa ku dhex yaala Madaa'in Saalix, sidoo kale loo yaqaano Xijir, oo ah halkii lagu halaagay reer Thamuud. sida ku xusan Quraanka, reer Thamuud waxay ahaayeen dad uu Alle siiyey awood iyo lixaad xoog leh. waxay xigto ahaayeen reer Caad oo Alle subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay in dhulka uusan ku abuurin kuwo la mida. reer Thamuudna si u dhow Caad ayay ahaayeen dad camaaliqo ah oo aad u xoog waaweyn. awooddooduna ay gaartay in ay dhagaxyada buuraha qodaan oo ay ka dhex samaystaan guryo ay degaan. daarihii iyo qasriyadii ay ka tegeen ayaa weli ah kuwo raadadkoodii la arki karo. waxay lahaayeen odayo u taliya oo sida boqorrada go'aankooda loo qaato. dhulka Madaa'in Saalix ama Xijir waxa uu wakhtiga ahaa dhul barwaaqo ah oo cagaaran. reer Thamuudna waxay ahaayeen dad awood jir ahaaneed oo weyn iyo dhaqaale badan leh, cidna aysan awoodin inay ku soo xadgudubto, taasi oo keentay inay noqdaan kuwo kibra. kuwooda xoogga leh waxay ku xadgudbi jireen kuwa ka hooseeya. kibirkoodii iyo isla weynidoodii ayaa xaddhaaf noqotay. dulmigooduna kuma ekaan keliya in ay dhagaxyada guryo ka qodaan, ee shaydaan ayaa u qurxiyey inay sidoo kale dhagaxyada ka samaystaan sanamyo ay caabudaan. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa u soo diray Nebi Saalix oo ahaa mid ka dhashay reer Thamuud, kuwooda ugu sharafka badnaa, dhexdoodana ku lahaa qadarin. Nebi Saalix calayhi salaam ayaa reerkiisa uga digay cirib xumada ay leedahay in lagu shirkiyo Alle subxaanahu wa tacaala. wuxuu xusuusiyey awoodda uu Alle siiyey oo ay qasriyada dhagaxyada uga dhex samaysanayaan. wuxuu sidoo kale xusuusiyey sidii loo halaagay kuwii ka horeeyey ee la yimid kibirka iyo shirkiga ay la yimaadeen oo kale. waxay ku yidhaahdeen kama tegayno wixii aan ka dhaxalnay aabbayaasheen, oo ay ula jeedaan asnaamta. si la mida reer Caad ayay Thamuudna u caasiyeen rasuulkii Alleh subxaanahu wa tacaala uu u soo diray, iyaga oo ku yidhi haddii aad run sheegayso la imow xujo cad oo na tusinaysa fariinta aad waddo xaqnimadeeda. waxa uu Nebi Saalix calayhi salaam ku yidhi, ii sheega xujo cad oo aad doonaysaan inaan idinla imaado si aad xaqa u raacdaan. markaasi ayay ku yidhaahdeen buurtaas ka soo dhex saar hal geel ah. Nebi Saalix calayhi salaam ayaa ku yidhi haddii Alle subxaanahu wa tacaala uu xujadiinan idin siiyo ma rumaynaysaan xaqa oo ma ka tegaysaan shirkiga? markaas ayay yidhaahdeen haa, waan ku rumaynaynaa, iyaga oo filayey in ay tahay xujo aan la fulin karin, sidaasna warkiisa uu ku dhammaanayo. Nebi Saalix calayhi salaam ayaa Alle subxaanahu wa tacaala ka baryey inuu xujadan ay codsadeen uu u sameeyo si xaqu uu ugu iftiimo dadkiisa. muddo kadibna iyadoo goob fagaare ah la wada joogo ayaa hal weyn oo aysan weli nooceeda arag ka soo dhex baxday buur.
buurtan oo laba dhinac loo kala dhantaalay ayay hashani ka soo dhex baxday. markii ay arkeen ayay argagaxeen. waxa uu nebi saalex calayhi salaam ku yidhi, tani waa hashii alleh, ka leexda oo wax dhib ah yaal noo geysan. qayb yar oo reer tamuud ka mid a ayaa rumeeyey nebi saalex calayhi salaam. intii kalena oo ay ka madax adeegeen xaqii loo caddeeyey. waxay dhibsadeen shuruudihii la socday hasha oo alle mucjisada uga dhigay iyo sida xujadoodii loo furay. odayadii talada reerka hayey ayaa ku shiray qasrigoodii, waxaana la go'aamiyey in hasha saalax uu xujada ka dhigtay la dilo. markii ay odayadii shireen, koox ayay u xilsaareen dhagartii ahayd in la dilo. ugu dambaynna 2 sharwade oo reer tamuud ka mid a ayaa hashii boqna gooyey, sidaana ku dilay hashii mucjisada ahayd. waxaa xigtayna qorshaynta sidii loo dili lahaa nebi saalex calayhi salaam. mar haddii hashii la dilay, waxa keliya ee ay sugayeen reer tamuud waa ciqaabtii alle subxaanahu wa tacaala. nebi saalex calayhi salaam iyo intii yarayd ee rumaysay waxay ka baxeen magaaladii. intii aan waagu baryinna waxaa lagu ciqaabay dhulgariir ku soo dumiyey guryihii ay dhagaxyada ka samaysteen. qof ka mid a reerkanna kama badbaadin ciqaabtii alleh marka laga yimaado intii rumaysay ilaahay. sidaas ayaana lagu halaagay reer tamuud. magaaladoodiina waxaa ka haray dhismayaal kooban oo cidlo ah. kadibna cidna maysan degin halkii lagu halaagay, oo ilaa maanta ah meel faaruq ah oo bannaan oo keliya ay ka joogaan qasriyo dhagax laga qoray. sida ku soo aroortay saxiixulbukhaariga, cabdilaahi binu cumar ayaa laga soo wariyey inuu yidhi, markii aan u soconnay dagaalkii tabuuk waxaan sii marnay xijri. kadibna qayb saxaabadii ka mid a ayaa ceel meesha ku yaalay biyo ka dhaansaday. markaas ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasallam na amray in aanan gelin guryahooda, sidoo kalena ceelashooda aanan waxba ka cabbin, xoolahana biyo laga siin. waxa uuna ka digay rasuulku sala allahu calayhi wasallam in halkaas la galo si degdeg ahna looga gudbo marka la ag marayo, si looga digtoonaado ciqaabtii ay la kulmeen. sidaas ayayna ummadda islaamka ah mar walba uga fogayd u dhowaanshiyaha dhulkaas lagu halaagay reer tamuud. dowladda sacuudigu markii ay ku dhawaaqday hiigsiga 2030 ilaha dhaqaale ee ay filayso in mashruucani uu dhaliyo ayaa waxaa ugu weynaa soo jiidashada dalxiisayaasha soo booqanaya dalkaas. goobaha taariikhiga ah ee loo diyaariyey in ay mashruucan qaybka ka noqdaanna ayaa waxaa lagu soo daray magaalada alculaa, si gaar ahna xijri ama madaa'in saalex oo ilaa wakhti fog ahayd meel aan loo oggolayn in ay dadku booqdaan ama u dhowaadaan. laakiin caadi ahaan deegaanka alculaa waa meel si caadi ah ay dadku u deggan yihiin, balse qaybta loo yaqaano madaa'in saalex ayaa halka ay dadku deggan yihiin u jirta 20 kilomitir. waana goobta la mamnuucay in loo dhowaado. waxaynu u jeednaa madaa'in saalex. sannadkii 1970kii majliska culimmada sacuudiga ayaa soo saaray fatwo lagu mamnuucayo wax kasta oo booqasho, baaritaanno raadad taariikhi ah iyo in loo dhowaado dhammaan deegaanka madaa'in saalex. yunesko ayaa sannadkii 2018kii xijri ama madaa'in saalex ku dartay diiwaanka dhaxalka adduunka. markaa kadibna waxaa bilowday mashruucii lagu soo jiidan lahaa dalxiisayaasha imaanaya alculaa, iyadoo si gaar ah loogu diyaariyey garoon diyaaradeed oo alculaa ay yeelatay, kaas oo ay ka soo degayaan dalxiisayaasha doonaya inay soo booqdaan madaa'in saalex ama deegaanka xijri oo ah magaca qur-aanku uu ku tilmaamay reer tamuud. waxaa sidoo kale mashruuca hiigsiga 2030 ka mid a in alculaa ay hesho dhowr hotel oo casri ah oo martigelinaya dalxiisayaasha, goobo caways oo damaashaad iyo muusig lagu qabto habeenkii, iyo makhaayado laga cunteeyo. dhisme lagu magacdaray almiraaya oo dhowaan ku guulaystay dhismaha muraayad ama dhallo ee ugu qurxoon oo leh holal lagu xafladeeyo iyo tiyaatar masraxiyadaha lagu qabto ayaa isagana laga dhisay. mashruuca dalxiiska alculaa ee ku aadan deegaanka alxijri ayay wasaaradda dalxiiska sacuudigu ku tilmaamtay mid isku xiraya xadaaradihii hore iyo nolosha casriga ah. marnaba laguma xusin wax warbixinno ah oo la xidhiira dadkii lagu halaagay dhulkan. keliyana waxaa haraadiga dhismayaasha lagu sameeyey mid ka turjumaya dhaxalka ilbaxnimadii qadiimiga ahayd ee deegaankan uu lahaa. xogtan waxaa lagu daabacay websaydyada rasmiga ah ee loo diyaariyey hiigsiga 2030 ee uu dahfuray dhaxal sugaha dalkaasi. dadka tirada yar ee degan alculaa ayaa la siiyey tababaro la xidhiira soo dhoweynta dalxiisayaasha soo booqanaya deegaankooda, si gaar ahna ugu sii jihaysanaya madaa'in saalex. dunida muslimka ayay arrintani yaab ku noqotay. culimo badan ayaana ku tilmaamay xadgudub cad oo lagu baalmarayo
dardaarankii uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam uga tegey ummaddiisa. dowladda Sacuudigu qiiladhaantaas waxba dheg jalo kuma siin, waxaana bilaabatay booqashada dalxiisayaasha oo markii hore lagu bilaabay kuwa gudaha, kadibna waxaa si rasmi ah loo dahfuray imaanshiyaha dalxiisayaasha ajaanibta ah.